Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wanaagsan idin lahaantiin baddaawadayaal meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan. Waxa aan jeclaystay inaad idinla wadaago duco ka mid ah ducooyinka lagu ducaysto xilliga lagu guda jiro salaada, gaar ahaan atixiyaadka ugu dambeeya. Ducooyinku waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray addoommadiisu in ay markaasi ay ku baryaan, isaga oo markaasi u aqbalaya qof kasta oo muslimba duco kasta oo uu ku ducaysto. Waxaana loo baahan yahay in uu qofku mar walba uu joogteeyo ducooyinka iyo weliba xidhiidhka uu la leeyahay Allaha weyn ee awoodda badan ee abuurtay. Ducadan ayaa markaasi waxa ay odhanaysaa oo markaasi uu qofku odhanayaa xilliga uu ku guda jiro salaada. Waa duco aad u muhiima. Nabiga calayhi salaatu wassalaam ayaa waxa u yimi Abubakar binu Sidiiq, asxaabigii nabiga saaxiibkii ahaa. Dabadeetana markaasi waxa uu ku yidhi, rasuulkii Ilaahayow, waxaad ii sheegtaa duco aan ku ducaysto xilliga aan ku guda jiro salaadaha, gaar ahaan xilliga aan salaada ku jiro duco aan ku ducaysto ii sheeg buu ku yidhi. Markaasi nabiguna calayhi salaatu wassalaam waxa uu ku yidhi, ducadan ku ducayso. Waxaanay ducadu ay tahay: Allaahumma innii dalamtu nafsii dulman kathiiran walaa yakfiru dunuuba ilaa anta faghfir lii maghfiratan min cindika warxamnii innaka anta alghafuuru raxiim. Ducadu markaasi macnaheedu waxa uu noqonayaa: Allaahumma Ilaahayow, innii anigu dalamtu waxa aan dulmiyey nafsii naftayda dulman kathiiran dulmi aad u fara badan, walaa yakfiru ma dhaafo addunuuba dunuubta ilaa anta adiga mooyaane. faghfir lii Ilaahayow, ii dembi dhaaf maghfiratan dembi dhaaf oo min cindika agtaada ka ahaaday. warxamnii ii naxariiso innaka adigu Ilaahayow alghafuuru waxaa tahay allaha dhaafitaanka badan ee arraxiimu ee naxariista badan. Ducadaasi markaasi waxa uu qofku ku ducaysanayaa xilliga uu atixiyaadka ugu dambeeya salaada lagaga baxayo uu qofku ku guda jiro. Waa duco aad u muhiima. Markaasi waxaana wanaagsan inuuna qofku aanu ilaawin ducadaasi uu markaasi uu mar walba ku ducaysto, maadaama oo ducooyinku ay yihiin waxyaabaha uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qof walba uu ugu aqbalayo waxyaabaha uu markaasi uu jecel yahay adduunkiisa iyo aakhiradiisaba. Fadlan la wadaag walaalahaaga muslimiinta ah ducadan. Waxaan rajaynayaa insha Allah in aan idinla soo wadaagi doono ducooyin kale oo iyaguna sidaasi oo kale u qiimo badan. Inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.